iftiinka ummadda waa hoyga aqoonta. Fadlan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqaad soo dhawaada. Maanta waxaan qaadan doonaa cashada baadkalka ah si toos noo bilaabmay. Fadlan waxaan ka codsanayaa cashadii oo ka dambeeyay cashikaani oo waxaa ka dambeeyay output device-ka iyo input device-ka iyo mouse waxaasna ka dambeeyay. Fadlan waxaan ka codsanayaa inaad cashada soo daawato aad si fiican u soo fahanto wixii su'aal ahna waxaan leenahay group oo aan dadka ugu faa'iideyno aqoonta ugu faa'iideyno ajito ma fahmaysan groupkaas insha Allah groupkaas soo dhig groupkaas dad kamid ahaan fadlan commentiga noo qeyb wixii su'aal aad qabto ama wixii aad fahmaysay marka hadda waxaan noo bilaabmay chapter 4 ayaan noo bilaabmay oo chapter 4 wuxuu ku saabsan yahay waa program cusub oo la magac baxay MS-DOS marka programkaasi wuxuu ku imaada computer walba ku imaada maaku program khat soo degsan maaha window walba ku imaana window walba computer ku noomguluusho oo ku jaa waxa soo saartay shirkadda oo Microsoft ay soo saartay waa shirkadooyinka oo Windows-ga operating system computer ku shaqeeyo oo soo saartay MS-DOS-ka marka waa program asaasiga waxaan loo talgalay dadka cusub oo baranayo computerka aan aqoon isticmaal computerka ayaa loo talgalay in training ah loo qaato sidii u fahmaan isticmaalka computerka marka programkan hadaad si fiican aad u fahanto waxaa waala inaad intii isticmaal computerka si fiican aad u fahmi doonto insha Allah waan programantii ka caawi doono isticmaalka keyboardka iyo qoraalada iyo code qorista iyo wax ka caawi doono way programkaasi waa programantii aad u muhiim ah aqaayay waxa bilaabnay chapter 4 ayaa bilaabmay waana qaybta practicalka marka programkeen maanta wuxuu ku saabsan yahay waa MS-DOS magaciisa la MS-DOS waxaana aasaastay shirkadda Microsoft waa shirkadooyinka operating system-ka aasaasta marka wuxuu ku imaadaa window walba ayuu ku imaadaa window 7 ahaado window 10 ahaado window XP ahaado window Vista ahaado marka ay window ayuu ku jiraa programkani oo MS-DOS waana program asaasi ah waxaan loogu talgalay qofka computerka bilowga ah inuu ku barto isticmaalka iyo wax qorista inuu ku barto ayaa loogu talgalay programkan MS-DOS marka cashikeena koowaad oo ugu horeeyo oo programka wuxuu noqon doonaa how to start MS-DOS command si loo soo kacsado MS-DOS programka MS-DOS-ka number 1 wuxuu ku leeyahay click start button waxa ku dhuftaa start button waxa la halkaani oo calaamad loogada la start button ama start menu marka ku dhufto waxa soo kacay start menu kadib wuxuu ku dhufaa click all program hadda markii click all program ku leeyahay laba qayb jirto marka Windows 7 isticmaalaysid click all program laakiin marka Windows 10 isticmaalaysid click all program ma laho click all apps lahaya number 3 select accessories number 4 click common prompt oo ku leeyahay iyo qaab kale ajito another way kale ajito waxa adigoo isticmaalaya keyboardka oo isticmaalayo waxa taabanaysa window key plus waxa qoyaysa CMD ayaa qoyaysa waxa ku soo kici doono ayaa qoy doonta CMD kadib waxa leedahay okay gabadha si toos ay kugu soo kacaya programka bal sheekada aan ka dhigno itis itaabsi aan gudaha u galno practicalka marka magacaasha ugu weyn qaadan doon waxay tahay si ay soo kiciyaan computer si ay soo kiciyaan MS-DOS-ka marka had buuga aan aqoonay si loo soo kiciyaan MS-DOS-ka marka Windows 10 isticmaalayo Windows 7 isticmaalayo xoog way kala duwan yihiin had marka Windows 10 waxa isticmaalna Windows 10 marka soo kicinaysid MS-DOS-ka waxa isticmaalaysaa waxaad amaysa wadadaani start button leedahay click Windows Accessories waxa ku dhuftaa Windows System waxa ku dhuftaa kabacdi waxaad doorataa MS-DOS aad doorataa MS waxaa loo soo gaabiyaa Microsoft ayaa loo soo gaabiyaa MS bal aan practical aan galno waxaan leenahay start button soo kacsanayna kabacdi hoos ayaa degeynaa waxaan haynaynaa Windows Accessories ayaan haynaynaa halkaan ayaa ku dhufan doonaa
kabacdi hoos aan u degeynaa hoos markaa u degno kabacdi waxaan ku dhufanaa window system ayaan ku dhufan doonaa kabacdi waxaan ka dooran doonaa common prom waxaa laayaa ms doska waa shaashid madow sabab loo bixiyay common prom asaasi marka waxaa loo soo gaabay ms dos waxaan ku dhufan doonaa marka programkii toos ayuu nagu soo kacaya toos ayuu nagu soo kacay waa kana toos ayuu soo kacay programkiina marka waxaa jirta wadooyin badan aan isticmaalayno aan sidaa kusoo kicinayno marka adigoo keyboardka isticmaalayo aan tijaabino adigoo keyboardka isticmaalayo waxaan leenahay waxaan qabanayna window k plus r window k plus r markaan taabano kabacdi waxaan qoranaa cmd ayaan qoran doonaa cmd ayaan qoranaa kabacdi okay ayaan leenahay si toos ayuu nagu soo kacaya wadada ugu fudud oo lagu soo kiciyo marka waxaa jirto program kala jirto oo ms isku shaqo ay yihiin marka program kale oo isku mid yihiin ms doska waa programkani oo loo yaqaano windows shell waa program runtii advance ah midkaasi iyo midkan xoogo asiga ayaa fiican asiga ayaa si dhaqso u qabanayo marka in badan waxaa jirto macilad markaad koodka in badan isticmaalaysid waxaa kulmi doontaa ciid fara badan ayaa kulmi doontaa insha allah marka wixii marka cashir toos bilaabno wixii aad fahmi weyseen insha allah waan groupka ayaan isla xali doonaa insha allah groupka soo dhiga marka qofkii aan group aan kamid ahayn groupka soo gala marka waa ka insha allah programkaasi toos ayuu bilaabi doonaa hadda waxaan waana si loo soo kiciyo wax dhan marka cashirkiisa toos ayuu bilaabmay programkaas aad ka bilaabi doonaa ms doska waa program asaasi aad ku baran doonto isticmaalka koodka iyo ku fududaan doono qoraal qodista ku fududaan doona insha allah marka programkani oo sine windows shellkan waa nooc sidaan u yaala windows shellka waa mid aad u fiican tusaale xataa waxaa tijaabinaya kood aad tijaabinaya waxaan qorayaa kood aad tijaabinaya koodka aad tijaabinaya dir waxaa leeyahay kan dir allah hadii waxaa loo talagalay inuu soo bandhiga wax walba computerka ku jira uu soo bandhigayaa waa ka mida si dhaqso ay wax qabanaya marka midkaani aad u fiican yahay marka labada mid waa isla wareegi doonaa ms doskan si goon ah aan isticmaalayna kanna si goon ah u isticmaalayna fadlan videoana dad daawatay like garay hadaad cusub tahay subscribe dheh wixii aad fahmayseen insha allah commentiga nagu reeba marka guul ay idin rajeynaynaa marka insha allah halkan ayaa kusoo gabagabeynayaa cashirkeena halka muhiimada ma aha waa practicalka marka insha allah waxaa badan ayaa isla arki doonaa bal ala soo iibsado computer ala soo iibsado qofkii heystan waa si loo baahnaa marka hadaad barato ms doskan waxaa ku fudaano kood qorista ku fudaan doono insha allah halkaas ayaa ugu baxaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu iftiinka wadada waa hoyga aqoonta fadlan naga